barashada mantiqiyo lagu helay cawaali igaaga taageli idinkuna hayiyo dhammaantiin haweenko umad lagu hitaayo danta guud hagayso kulankan uu daaran yahay maadaama shalay uu noo furmay galfadhiga internationaal ee baarlamaanka Puntland aan ku casuumay wafdi xildhibaanada oo ka socda baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal gaar ahaan kuwa ku matala Puntland kulankaas markuu u daaranaan doonaa inaan dood wadaag iyo kala qaadasho iyo isdhaafs ku saabsan arrimaha federaalka aan kulanka ku yeelano waxaan xoogga saari doonaa oo muhiim ay tahay in wax la iska yiraahdo maadaama xildhibaanadii heer federaal ku matalaya Puntland ay joogaan xildhibaanadii Puntland oo shacabka Puntland oo dhan matalaan ay joogaan dalkana uu federaal yahay arrimo badan oo dhibaatooyin ay ka jiraan dalka inaan arrimaha federaalka dood ka yeelano aragti iska weydaarsano aragtideennana markaan is weydaarsano aan communique iyo go-aanka soo saarno markii lagu laro la tashiyada kale ee muhiimka waxaan marka xoogga saari doonaa dastuurka oo aada ogtihiin in la farafareeyey oo faragelin lagu sameeyey Puntlandna aysan aqoonsanayn faragelinta iyo isbedelkaas lagu sameeyey dastuurka xeerarka oo qaabka xeerarka heer federaal oo ay ahayd maadaama dalku uu ku jiro nidaam dib u heshiisiineed dastuurka federaalka ee 2012 oo kan aan aqoonsanayna uu si cad u dhigayo in awooduhu waxyaabo kooban oo dowladda federaalka la siiyey oo 4 qodob ku kooban maahay wixii kale in laga negotiate gareeyo ama laga wada hadlo sidaasna lagu saleeyo taasoo iyadana ay socdaan arrimo badan oo lid ku ah oo ay ka mid tahay in la sameeyo xeerar hal dhinaca u samaysan qaab centralizer ama kuwa resourciga la xiriira ha ahaadeen ama kuwa doorashooyinka la xiriira ha ahaadeen iyo waxa la midka hadhowna ay dalka saameyn ku yeelato taasna inaan wax iska niraahno way ku fiican tahay waana qodobada aan kaga hadli doono qodobka saddexaad waxa weeye inaan ka hadlo awood qaybsiga Soomaaliya waxaa ka dhacay dagaal sokeeye dowladdii dhexe oo centralizerka ay ku burburtay 10 sano dowlad la'aan baa la maray 20 sano ka hor ayaa dib loo bilaabay in dowladnimo la sameeyo 20 sano ka hor ayaa la isla qaatay nidaam federaal awood qaybsi ku dhisan maantana waxyaabo badan oo sidii la rabay ama itijaahii loogu talagalay inay u socdaan aanu socon baa jira oo awoodihii hal dhinac isku koobayo oo aan hadba wax la samaynayo oo qaarkood inta dastuurka la taataabto meesha laga saarayo waxyaabahaasna inaan wax iska niraahno ayay dooddeenu taawan doontaa khulaasadeennana afkaarteena aan dadka u gudbino qodobka kale ee afraad ay tahay inaan wax iska niraahno isagana oo aan ka hadli doona waxa weeye siyaasadda guud ee dalka oo iyaduna jihadii 20 sano ka hor loo yegleelay oo loo socday oo dib u heshiisiinta qaran ahayd oo ahayd in cid la turxaan bixiyo waxyaabihii dhacay oo ahayd in dowladnimo wadaaga oo la wada leeyahay oo nidaamka federaalka ku dhisan stateskuna ay awoodo ugu badan leeyihiin dowlad dhexe oo federaal ah la ay jirto
aad moodo iyadana inaan wadiiqadii hadda lagu socon ee wadiiqo kale oo qalqalloocda oo meelay ku dhammaanayso aan la aqoon loo wado iyaduna waxay u baahan tahay inaan wax iska nidhaahno si aanay berri caqabad ugu noqon dadka aan matalo qodobka kale oo shanaad oo muhiimka ah oo madashan ay tahay isagana inaan kaga hadalo waxa weeye horumarka iyo mashaariic dalka timaada ama magaca Soomaaliya ku timaada taasoo iyadana waayadan dambe looga dhigtay in loo isticmaalo siyaasad in lagu toojargareeyo dadka in sidii xalaasha ahayd ama wax lagu qaybsan jiray oo la yaqaan formulooyin la isla yaqaanahay laga leexiyo in la yiraahdo haddaadan hebel saxiixin iyo shirhebel tegin mashaariic ma helayso iyadana inaan afkaarteena iyo doodeena ku darsano waxna iska nidhaahno waxaan is leeyahay shantaa qodob ayaa ugu muhiimsan kulankeenaan inaynu wax iska nidhaahno kadibna aynu maxsuul kooban ka soo saaro intaasaa baan is leeyahay baa ugu muhiimsan waxaan rabaa inaan iraahdo maanta Soomaaliya meel runtii aad u khatar badan oo walwalna bay maraysaa Puntland baan anaga joognaa goliga wakiilada Puntland baan nahay 1998 markii la dhisayay waxay ku dhisantay in muddo la sugayay in jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo midaysan la helo markii la waayay dadka dhulkan degan waxay goosteen inay maamul danahooda iyo masaariixdooda ka shaqeeya ay samaystaan markii dambe oo nidaamka federaalka la qaatayna waxay ahayd inay lahaato awoodaha ay noqdaan sida dalku u dhismaayo nidaamkan federaalka markii la qaadanayay waxaa keenay in la qaato dalku waa burburay hantidii baa la kala qabsaday casuumadda ummadda Soomaaliyeed baa la kala yeesho la isku dagaalo laga eegay dadkii qaar waxa marka sida saxda ah oo principalka ay ahayd ama ay tahay ama ay Puntland ku dhisantay inay noqoto dowlad xubinka ah dowlad federaal ah oo wadaheeda leh nidaamkeeda leh dhaqaalaheeda leh ciidamadeeda leh taladeeda leh taasayna ku taagan taasayna waajib tahay anagu aan ku dhaaranay kuna taagnaan doonta mararka qaarkood waxaa la yiraahdaa taasaa waxaa laga yaabaa in loo bedelo negative ama eed laga dhigo adduunka dowladaha maanta ugu horumarsan oo haddaan soo qaadano hadda Jarmalka oo kale oo dal weyn dalalka ugu waaweyn systemkaas system lamida oo dowlad dhamaystiran oo barnaamijyadeeda leh oo nidaamyadeeda leh oo elected memberskeeda leh oo siyaasadeeda leh oo xataa wixii diplomacy caalamka la xiriirtay ayaa ka jirta stateskeeda sidaan oo kale wadan civil war ka dhacay buu ahaa isaguna oo taariikhda markay qaadanayeen baahi tan lamida Soomaaliya ku jirta baa keentay oo aad ogtihiin inuu jiri jiray darbigii Berlin iyo waxyaabihii la midka ah wax marka taa ka bedelan oo dalkan maanta joyce waxna ma jiro oo la qaadan karo in badan taas ayaa moodaa in la diiday oo cid kale ma diidanay dowladda federaalka ay si toos ah oo cad u diidantay awoodiin soo koobayso khayraadka la leeyahay shirkadooda leeshiina meel lagu leeshiya aan la aqoon dastuurka federaalka sida loo dhammaystirayo waxaa qeexaya isla dastuurkaa sheegay dastuurna sideedaba waa dokumentiga ugu weyn oo uu daleeyay waxaa xaq u leh qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadin inuu afkaartiisa iyo darajadiisa maadaama uu berri saameynayo in wax laga weydiiyo isbedelka hadda la sheegay ama taabashada la sheegay oo daan aan aqoonsanayn baarlamaanka federaalka Soomaaliya xilligii dastuurkan la rabay in loo bilaabo heshiisyo la galo heshiisyada waxaa ku jiray
waxyaabaha muhiimka oo shuruucda iyo dastuurkaba inay dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan state by state degaan la tashi iyo aragtidooda laga qaado state baarlamaanka oo baarlamaanka Puntland uu ka mid yahay ay soo marto inkastoo aanan aqoonsanayn qaabka loo maray saxa habraaci markii la sameeyay isbedelka la rabay in la sameeyay waxa ku caday in baarlamaanada dowladda federaalka loo dirayo 30 bari iyo xukuumadda 30 bari ay haysanayaan nalooma soo dirin nalama soo wadaagin nalama weydiin lama keenin illa lama tashan taas waxa cad inaan Puntland lagu hadlayn aanayna aqoonsanayn uusan ka shaqeynin mid kale oo dheeriyana inaan loo hanqalkaagin oo dadka la sii rafo iskeeda la dadka yiraahdo marka dowladda Soomaaliya laga hadlo ama dowladda federaalka iyo waxaas dhulka hadhigto ka xajiinooda Soomaaliya dowlad shacabku doortay dastuur tafatiran oo dhameystiran oo aftida weyna haysta awood la isla ogol yahay oo dhameystiran haysta kama jirto dowlad dhismaysan oo ku jirta waxa la yiraahdo state building process la yiraahdo dowladnimo la dhisay state building process kaasna wuxuu u baahan yahay in la isla ogolaado oo la isla qaato waxa lagu maamulayo dalka haddii aan la isla qaadan oo daraf ka baxo wixii ka yimaadana isaga eedeeda leh mana shaqeynayso marka dastuurka inaan aragtideeda intaas ku yiraahdo xeerarka faraha badan oo mararka qaarkood iyadoo aan laga nugisheed garayn oo dastuurku sida cad u sheegay in ay tahay in laga wada hadlaan waa iskiloogan iyaguna waa la mid hadduusan wuxuu processkii saxda ahaa marin waa naal aan foy waxbana kama jira lagumana dhaqayo deegaanka sida saxda ah waxaa hadda la isku haystaa iyadana intayna wax iska nidam golayaasha siyaasiga oo golayaasha dadka matalaya waxaa la isku haystaa hadda aad ogtihiin doorashooyinka dowladda federaalka hadda joogtaa waxay leedahay dowladyada waqtigooda dhammaada inay iska joogaan hal guddi doorashaa la samaynayaa guddigaasaa wuxuu ka qabanayaa dalkoo dhan doorasho states ka qabanayaa guddi ilaa hadda jira ma jiro sharci la isla aqoonsaya ilaa hadda ma jiro experience-ga Puntland Soomaaliya marka la yiraahdo ama dowladda xubnaha dowladda federaalka Puntland baa maanta ugu badan xogtiin inaan anigu ka shaqeynayay oo qaybka nidaamka aan haysano oo federaalka oo hadda qaab u dhisan yahay systemka aan haysano horta totally hal guddi doorasho kamana shaqeyn karo macquulna maaha sharci maaha nidaamka federaalka aan qaadanay markaa wax practical oo reality ah wax la aqbali karo ma dastuurka Puntland baa sheegaya guddi doorasho lahaato in nidaamkeeda lahaato dastuurka federaalka wuxuu sheegayaa in guddiga heer federaal ay doorashooyinka heer federaal qabtaan wax marka isu gelin kara farsamo ahaan xataa macquul ma waxyaaba hadda laga hadla waxaa ka mid ah in doorasho sanadii hore kadib qofiga oo dalkooda gees laga qabanayo doorasho Soomaaliya haddii la rabo laga qabto in la operational gareeyo iyo operationskeeda keliya baa laga yaabaa inay u baahan tahay sanad ilaa sanad iyo 8 bilood marka wax walba u dhameystiran yihiin shuruucdu u dhameystiran tahay nidaamku u dhameystiran yahay dhaqaaluhu u dhameystiran yahay aqoontu u dhameystiran tahay isla ogolaansho u dhameystiran yahay sideedabana waddan farajayda oo Soomaaliya kala marka la rabo arrimahaas kala laga hadlo hal shay baa ugu muhiimsan haddaanu jirinna waa kama jiraan ka yiraahdo waa qabanayo waa waxa la yiraahdo political space management waa in saaxadda siyaasaddu ay tahay mid ku habboon la isla ogol yahay oo degan haddaan taas ka jirin in waxaan jirin la sameeyo dadku isku laayaan bay horseedi kartaa laakiin wax kale ma horseedi karto waa ku dheeraaday mar rabay inaan hadalka saa u sii galay waxaan wadaa inaan discussion sii galay laakiin
doodeenu inaan furun bayd intaasna ay fokus garayso aad iyo aad baa umahadsantiin ilaanada aad noo soo dhaweynaya aad baan ugu mahadcelinaya kasoo qaybgalkooda kulankan iyo su-aaljiintaankooda munaashkii meel federaal labada puntland aawad si fiican oo maaragtay buuxda uga soo qaybgalayna aad baan ugu mahadcelinaya guddiga ugu mahadcelinaya shirku inoo furan yahay aad umahadsan